Kulti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobadan wararkeena ku soo qaadi doona waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha Qaatuma Cabdulqaadir Firdhiye oo hubka dhigis ku bilaabay siyaasiyiinta mucaaradka xilli uu fashilmay shirkii lagu waday inuu maanta ka furmo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool haddaba waxaa idin soo gudbin doona macluumaadkii iyo xogihii ugu dambeeyay waa sidii xaaladda guud ee magaalada Laascaanood dhaqdhaqaaqyo culus oo ka socanayo wafdiga dowladda federaalka Soomaaliya ee wasiir xoosh uu hogaaminayo oo lagu baaqay in dib ugu laabtaan Muqdisho xilli gebi ahaanba shirka uu qarka u saaran yahay in uu burburo haddaba yaa waaye cidda ka dambaysa qorshaha burburinta shirka dhismaha maamulkiisa si Qaatumo waxaan dila wadaagi doonaa xogihii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada ka socanayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo aan warar dheeri kaga heyno isla mid waxaan dila wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay xukuumadda Firdhiye oo ku tilmaamtay siyaasiyiinta musharaxiinta oo uu ku jiro gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Somaliland inay yihiin kuwa huwana iyo Qaatumo oo culus ka soo saartay maaqashada shirka maanta wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad daawan doontaan dowladda federaalka Soomaaliya oo hub iyo ciidan bilowday inay ku daabusho gobolka Gado iyo Jubbaland oo dib qaaday tallaabo culus oo arintan ay kaga hortagayso wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin heynaa soo dhawaada saaxiibayaal fadlan daawada haddii aad saaxiib nagu cusub nagu soo biir adigoo subscribe saaranaya barteen YouTube-ka rukumanaya wararkeena iyo dhacdooyinka xiisaalan gobolkan ku soo baahino waa hagaagan ku bilaawno wararkeena waxaanu ku hormarin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay baaqashada shirkii lagu waday inuu maanta ka furmo magaalada Laascaanood ee dhismaha maamulka si Qaatumo haddaba maamulka kumeel gaarka si Qaatumo ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dib u dhac mar kale maanta ku yimaaday shirweyne la filayay inuu ka furmo magaalada Laascaanood kaasi oo markii labaad baaqday sabab la xiriira khilaaf guud oo markaasi gudaha maamulka si Qaatumo ka taagan haddaba wasiirka warfaafinta si Qaatumo Najiib Barqadle oo war rasmi ah soo saaray isla markaasina shir jireed qabtay ayaa sheegay in arrimo farsamo iyo wada tashiyo saacado socanayo uu u baaqday shirka isla markaasina si rasmi ah loo qaban doono maalinta birita oo axada Najiib Barqadle ayaa sidoo kale waxa uu xusay in haatan ay soo dhamaadeen kulamadii socday isla markaasina toos loo gudagalayo ajandaha shirka iyo sidii loo dhameystir lahaa maamulka kumeel gaarka ee SSC Qaatumo sidoo kale waxa uu markaasi baaq u diray bulshada deegaanka oo uu ka dalbaday inay kaalintooda ka qaataan ayna taageeraan geedi socodka dhameystirka dowlad goboleedka SSC Qaatumo hadda la isku khilaafsan yahay shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxa wali markaasi socanayo qabanqaabadiisa waxaana sidoo kale taagan dood ku aadan sidii sanaag loogu biirin lahaa maamulka SSC Qaatumo guddiga farsamada iyo hoggaanka sare ee SSC Qaatumo ayaa dhankooda ku hulan sidii xal loogu heli lahaa tabashooyin qaar oo laga muujinayo hanaanka loo wajahayo dhameystirka maamulka si xal waara looga gaaro dhismaha dowlad goboleedka rasmiga ah ee SSC Qaatumo dhankooda xildhibaanada baarlamaanka Qaatumo oo kulan degdeg ah yeeshay habeennimadii xalayheed ayaa go'aamiyay in la qabto shirka lana dhameystiro maamulka kadibna la aado doorasho halka siyaasiyiinta mucaaradkuna ay doonayaan in doorashada la hormariyo lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo halka ay ku dambeyn doonto dooda ka taagan oo ay siyaasiyiinta musharaxiinta ah ay ka keenayaan habraaca loo marayo dhismaha maamulka SSC Qaatumo kuwaasi oo ka soo horjeestay hanaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku wajahayso arrimaha SSC Qaatumo si kastaba ha noqotay SSC oo hadda u furmay dhabo cusub ayaa isku diyaarinayso maamul dhameystiran iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya u magacawday guddi farsamo oo howshaasi markaasi gudagala kuwaasi oo gaaray magaalada Laascaanood oo lagu wado in uu ka furmo shirka ay ka tashiga ee maamulka SSC Qaatumo isku soo wada duube warkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in xaaladda hadda ka taagan magaalada Laascaanood ay tahay xaalad cariya wirah iyadoo siyaasiyiintu ay soo jeedinayaan in si degdeg ah shirka lagaga hormariyo in Qaatumo ay adeejiga doorasho salaadiinta dhaqanka iyaguna ay ka doodayaan galka gobolka Sanaag Jaamac Garad Cali oo kamid ah garaadada ugu waaweyn deegaanada SSC Qaatumo ayaa soo jeediyay horaan in marka la eego arinta gobolka Sanaag dadka Sanaag daga iyaga loo daayo taladooda oo meel ka baxsan taladooda aan lagu jaangoynin si la mid ah sidii SSC Qaatumo ay dalban jirtay waxaa wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in madaxweynaha maamulka SSC Qaatumo Firdhiye uu go'aamiyay in musharaxiinta hubka laga dhigo taliska booliiska ee magaalada Laascaanood ayaa ku dhawaaqay inay dhaqan gelinayaan
go'aanadii iyo awaamirtii ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka SSC Khaatumo sidoo kale midda amniga oo ku saabsanaa in musharaxiinta iyo siyaasiyiinta dhinacyada kala duwan ay ku soo qulqulayo magaalada Laascaanood ay hub ka dhigaan oo markaasi ammaankoodu ay sugi doonaan ciidamada amniga. Firdhiye ayaa doonaya in wax qalalaasay amni aysan magaalada Laascaanood ka dhicin, taasi awgeedna hubka dhigis ayuu ku sameynayaa dhinacyada kale ee dhaqdhaqaaqa wada. Horaan ciidamo ayaa isku gadaamay hoolkii lagu qaban lahaa doorashada, waxaana markan Firdhiye u muuqdaa inuu awood ciidan uu doonayo inuu u adeegsado hirgelinta shirka dowladda Soomaaliya ay wado qabanqaabadiisa, kaasi oo ugu dambeyntii la go'aamiyey in maalinta berita uu ka dhaco magaalada Laascaanood. Haddaba si guud awaamirtaas ayaa kasoo baxday maamulka Firdhiye. Waxa uu ku dhawaaqay in shirka la dhaqan gelinayo, ciidamada waxa uu amray ama booliisku waxa uu siiyey amar ah in la hirgeliyo awaamirtii kasoo baxday wasaaradda amniga iyo sidoo kale midda arrimaha gudaha ee ahayd in hub aan lagu dhex wada karin gudaha magaalada Laascaanood. Sidoo kale guddigu dadaalo ayay wadaan. Salaadiin dhaqan oo wareysiye bixiyey waxay ugu baaqeen wafdiga wasiir Cali Xoosh uu hogaaminayo inay isaga tagaan Laascaanood oo aysan waxba u oolin. Marka xaaladda halkaas ayay taagan tahay, qir ayay kala taagan yihiin xubnaha musharaxiinta iyo Firdhiye. Sidoo kale salaadiinta dhaqan dhexdooda xiteer khilaafaad ayaa soo kala dhex galay oo Garaad Jaamac ayaa la sheegayaa Garaad Cali in lagu qancin layahay weli inuu ka qayb galo shirka. Marka arrimahaas ayaa ugu waaweyn SSC Khaatumo iyo dowladda federaalka galkooda. Waxaa ku biirinaysaa aragtida hoose ayaad nagu reebi kartaa. Qodobada kale ee barnaamijkeena ku jiro haddii aanu markaan eegno, waxaanu fiirinaynaa xiisadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland. Siday warinayaan ilwareedyo lagu kalsoon yahay, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hub iyo sidoo kale ciidamo bilowday inay u daabusho gobolka Gedo. Dowladda Soomaaliya ayaa qorsheynayso in mar kale ay hub iyo ciidamo ay geyso gobolka Gedo, maadaama la qorsheynayo in gobolkaasi uu qayb ka noqdo goobaha loo asteeyay inay ka dhacaan doorashooyinka qof iyo codka ah oo ay haatan ay wado kooxda Villa Soomaaliya. Warar soo baxay ayaa sheegaya in haatan la qorsheeyay in hub cusub lagu daabulo gobolka, ciidamana la geeyo si ay uga qayb noqdaan qorshaha lagu qaban rabo doorashada ee gobolka Gedo. Haddaba sidaynu xogaha ku helnay, ujeedada ugu waaweyn ayaa waxay tahay sidii Villa Soomaaliya ku heli lahayd kuraasta xildhibaanada ee gobolka Gedo, isla markaasina u soo xulan lahayd xildhibaanada cusub ee halkaasi. Sidoo kale wararka waxay intaasi ku sii darayaan in qorshahan ay waxay ka fuli doonaan xubnaha horey uga tirsanaa Jubbaland oo lagu biiriyey saraakiil cusub, kuwaasi oo lagu wareejin doono gaadiid dagaal iyo ciidamo. Qorshuhu yahay in diyaarado lagu geyn doono halkaasi magaalada Muqdishona laga qaadi doono, sidii noo xaqiijiyeen ilwareedyo xilkas ah oo lagu kalsoonaan karo. Dhinaca kale, Jubbaland u muuqatay inay fahansan tahay qorshahan iyo abaabulka ay wado Villa Soomaaliya ayaa maanta wafuud culus waxay u dirtay gobolka Gedo, kuwaasi oo gaaray degmada Buula Xaawo ama Balad Xaawo, waxaana hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Maxamuud Sidaadan Maxamuud iyo mas'uuliyiin kale oo la socdo ayaa markaasi lagu soo dhaweeyay magaalada Balad Xaawo. Waxaana soo dhaweeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada Jubbaland oo hore halkaasi u joogay, xildhibaanada maamulka ee gobolka Gedo ka soo jeedo iyo mas'uuliyiin kale. Mas'uuliyiinta Jubbaland ayaa sidoo kale la filayaa in dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo kulamo kala duwan ay ka bilaabaan halkaasi, kuwaasi oo looga hadlayo xaaladda ka jirta gobolka Gedo. Gudaha wararkeena waa